بسم الله الرحمن الرحيم وحين كودا جرنا chapter كلابات مادة حسابتا complex and imaginary numbers gaar ahaan waxaan ku guda jirnaa ciwaankeeni ahaa polar formka halka casharada kala socotaan waa channel YouTube-ka aqoon kororsi xisaab haddii aad ku cusub channelka subscribe si ay kuu soo gaaraan cashar kasta aan soo dhigo haddaad ku cusbeen share like and comment maanta waxaan qaadanaynaa example labaad polar formkan inala siiyay oo ah afar lagu dhuftay cos 60 degree oo lagu daray I sin 60 degree inaan u bedelno in standard form solution haddii aan fuudeyno waxay noqonaysaa standard formka complex numberka wuxuu yahay a plus bi marka qiimaha a waxaa lagu helaa r oo lagu dhuftay cos theta b waxaa lagu helaa r lagu dhuftay sin theta marka lagu siiyo polar form la raadinayo standard form waa inaan soo heshaa a iyo b a waxaa lagu heli karaa xeerka meesha noo saaran b na waxaa lagu heli karaa xeerka meesha noo saaran meel kastoo ku aragta r waxaa ku bedelanaysaa 4 meel kastoo ku aragta theta waxaa ku bedelanaysaa 60 degree number 1 waxaan raadinayaa a formula lagu helo waa ka meesha noo saaran marka waxay noqonaysaa a waxaa lagu helaa r qiimaheedu waxaan sheegay inaan ku bedelanayo 4 r waxaan ku bedelanayaa 4 oo lagu dhuftay cos theta qiimaheedu waxaan ku bedelanayaa 60 degree cos 60 degree haddii aan sii fuudeeyo waxay noqonaysaa 4 oo lagu dhuftay cos 60 degree qiimihiisu waxa uu noqonayaa ama haddii aan scientific geliyo ama ka fiiriyo trigonometry table-ka 1 loo qaybiyay 2 equal waxay la mid tahay kadib waxaa leedahay 2 u qaybi waa 1 4 2 u qaybi waa 2 lagu dhuftay 1 waxa ii soo baxay qiimaha a waxa ii soo baxay waa 2 qiimaha a waxaan soo helay 2 waxaan raadinayaa qiimaha b maxaa lagu helaa formulahiisa waa meesha noo saaran marka meel kastoo r waxaan ku bedelanayaa 4 meel kastoo theta waxaan ku bedelanayaa 60 waxay noqonaysaa 4 oo lagu dhuftay sin 60 degree 4 oo lagu dhuftay sin 60 degree b qiimaheedu waxa uu la mid yahay 4 oo lagu dhuftay sin 60 degree ayadana qiimaheedu waxa uu noqonayaa radical 3 oo loo qaybiyay 2 radical 3 oo loo qaybiyay 2 equal waxay la mid tahay b qiimaheedu waxa uu la mid yahay 2 u qaybi waa 1 4 loo qaybiyo 2 waxa ii soo baxaya waa 2 kadib waxay noqonaysaa 2 radical 3 2 radical 3 qiimaha b na waxaan soo helay 2 radical 3 marka standard formka waxa uu ahaa a oo lagu daray bi a oo lagu daray bi qiimaha a waxaan haystaa 2 oo lagu daray qiimaha b na waxaan soo helay 2 radical 3 halkaasna waxaan ku soo saaray standard form su'aasha DC waxay ahayd polar form waxaa lii weydiin waxay inaan u bedelo standard form jawaabtii noo soo baxday waxay tahay 2 plus 2 radical 3 ahna standard formka inala weydiiyey halkaas ayaan kusoo koobaya cashirkii maanta asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu